عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أقيار يوتيوب وان إذي سلامات عشر كلمات وحكو سابسان سيدا أصمر واتر مارك كاسو علامات دا اسكما يغان غفك علامات دوس أغونين مكا علامات دا يوتيوب في نوع أنا أسميه لكن سيدا لو سميه كورك افتيميز سانو أو جلاسيس صوتك وحيوان كل لغو سميه وحيوان بدن أيا لغو سميه oo aad loogu diyaa marka software-ka aan furno waa free oo waxa la game 2.6 description-ka ayaad ka soo download garaysanaysaa adigana marka sidan ayuu kugu soo baxayaa oo software-ka oo game la dhaho kadib waxa ku dhufsanaysaa file menu kadibna new aad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay oo weather-ka waxa ka dhigaysaa 640 intan waxa ka dhigaysaa 400 kadibna okay ayaa leedahay waxaad soo dooranaysaa meesha rectangle ku qoran tahay dragging aad sameynaysaa adigoo qiyaasanaysid intaa ratid inaad ka dhigatid kadib waxaad ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay rented corner kana geesaska sida arta ka dhigi kartaa afar gees ma kartaa sida artid adaa ka dhiganaysid kadibna waxaad tagaysaa meesha ku qoran tahay white ka on new layer no waxaad tagaysaa select waxaad tagaysaa save to channel kadib marka save channel hadu wuxuu ku sameynayaa in uu ku sameeyo selection master copy kadibna meesha bidixda ku dhufso kadibna ku dhufso meesha cadda oo create new layer kadibna okay dheh maxaa laga baahan inaad sameysid colorka aan hada flag ayaa rabaa inaad dhaxda ka dhigto adiga colorkaas u soo dooro meeshan kadibna okay dheh kadibna ka dooro calaamadaas qad meesha lagu shubayo kadibna madow oo pum ku siinaysid kadibna waxa leedahay meeshana tagaysaa select waxa ku dhufanaysaa feather meesha ku qoran tahay kadibna waxa ku dhufanaysaa meesha shanta waxaad ka dhigaysaa 100 kadibna okay ayaa leedahay oo calaamadaas ku dooranayo kadib waxaa leedahay selectiga hadana ku laabane shrink isticmaalaya waxaana ka dhigaysaa meeshaas halka 3 kadibna okay ayaa leedahay selectiga hadana ku laabanaysaa waxaa ka dooranaysaa grow kadibna waxaa leedahay 3 kadibna okay marka intaas samaysidba waxaa sameynaysaa create new layer ayaa leedahay oo meeshana ku dhufsanaysaa kadibna okay ayaa leedahay waa ku diyaarsan yahay markaas okay leedahay meeshan ayaa tagaysaa kala ka double click ayaa ku siinaysaa waxa dhaxda marka meesha dhaxdaada raba inaad kala ka dhigno kala ka artid guduud maarta blue maarta cadaan maarta green adaa taqaanid marka aan hadda waxaan ka dhiganayaa blue ayaan ka dhigayaa kadib double click markaan blue kus waxaan fiirinayaa daaqadaas inay tahay blue kadibna okay ayaa leedahay isla markii kaas active garaysanaysaa kadibna dhaxdana ku siinaysaa oo blue ayuu isku bedelay isla markii waxaa sameynaysaa meeshan ayaa tagaysaa select invert ayaa leedahay kadibna delete ayaa taabanaysaa oo wixii geesaska oo bluega ka baxa iyo madowga raaca soo jar kadibna select ayaa leedahay invert ayaa leedahay oo asi shakhsiyadiisa ayuu dooranaya kadibna waxaa leedahay channelka ayaa ku laabanaysaa oo waxaa leedahay select master copy active calaamada bluega saaraysaa kadibna meeshan guduudaan ku dhufsanaysaa oo save waxa u jeedaa marka inaan soo doortay geesaska bis marka maxaan tegaynaa meeshaas oo bidixdan hadana ku dhufsanaysaa sida meesha hore ugu laabano kadibna waxaa leedahay waxaad dooranaysaa meeshan ayaad ku dhufanaysaa oo rectangle ku dhigan tahay adigoo riixayo shift control hoos u qabanayo oo muuskana dragging ku sameynayo kadib iska dhaaf marka kadib waxaad leedahay create new layer ku dhufso kadibna okay dheh markii calaamada sidaas u saartidba waxaad dooranaysaa plain tools kadibna meeshan ay ku qoran tahay pluga ku qoran tahay granted ku dhufsanaysaa kadibna waxaad ka dooranaysaa fg2 pg kadib markaa highlight-ka saas u saartidba iska soo tag oo meeshan 100 ka yaray oo ka dhig khafiif oo ka dhig
54.8 haddaad tis sidaan u qaban karta xakadiisa 54.8 asaa ku taga isla meeshiiba adoona jiidinba kadib controlka adoo hoos u riixaysa waxaa samaynaysaa meesha kore ayaa ku qabanaya ilaa calaamada hoose ku keenay kadibna waa sii wada daynaysaa waa intaas oo kaliya maxaa laga baa inaad samaysid meeshan ayaa tegaysaa sidaan highlightkan ugu qaadno waxaa leedaha nan isla markii waa kana sidoo u dhalaala ujeedaa maxaa leedaha text ayaa ku dhufanaysaa marka qoraal ayaan rabnaa inaan dusha ka saarno kadibna adoo isticmaalo dragon fartana meesha aragtid inaad ka dhigtid ayaa ka dhigaysaa kadibna meeshaas waxaa ku qoraysaa waxa aad rabtay inaad ku qortid ha ka cabsanin kalarka oo hadda soo saaro waa blue laakiin kalarka waa laga bedeli karaa oo inta meesha bluega ayaa tegaysaa waxaad ku dhufanaysaa white ama green ama nooc farta aragtid ayaad ka dooran kartaa kadibna farta markaa intaas ka dhigtid waxaad samaynaysaa meeshaana tegaysaa oo numberka ah waad ku dari kartaa inta aragtid ayaad geysan kartaa kadibna meeshan ayaa tegaysaa textiga qoraalka aragtid ayaad ka dooran kartaa oo fart noocaan ah maxaa samaynaysaa meeshan ayaa tegaysaa oo istalaabta moving kuu sameynayo kadibna qoraalkii markaad sadan kugu noqoto waa jiidi kartaa oo meesha aragtid ayaad qoraalka ku tagaysaa kadibna haddii aad u baahan tahay inaad ku dartid waa ku dari kartaa oo hadda 36 ayuu maraa sidaan ayaad ugu weyneyn kartaa dib malahan kadibna adoo dragon sameynaya dhinacii aad u celinaysaa kadib markaan sidan u sameyno waxaan leenahay sidaan u save gareyn lahaynaa la iska rabaa marka backgroundka markaan muma baahnin oo white-ka waa inaan tirnaa sababtoo ma u baahnin marka waxaan leenahay right click aan leenahay waxaan leenahay delete layer macnaha backgroundka waa ka salinaa wow markaan movies waa la dhigi karaa meesha artid ayaa geysan kartaa file menu fur kadibna save as dheh markuu sidan kugu soo baxaba waxaad ku qoraysaa magaca aad rabtay inaad ku qortid kadib dot aad leedahay magacaad markaad ku qortid save ma dhigi kartid sababtoo wuxuu picture kaaga dhigaa markaas laakiin markaa maxaa leedahay png ha hilmaamin waa png kaas kadib markaa saddexdaas xaraf ku dhigtid kadib sababtoo pictureka waxaa la dhahaa jpg kana waxaa la dhahaa png sidiisa ayuu kugu qaadaa kadibna waxaa leedahay replace okay magaca hore ugu jiray dhimalahan waxaan ka dhigaynaa 1 kadibna save ayaa leenahay kadib markaa save dhahdid wax kale kuma dhafaysid waxaa ku dhufaysaa import ayaa ku dhufanaysaa kadibna waxaad leedahay wax kale ma dooranaysid save ayaa leedahay oo kaliya waa intaas oo kaliya marka aan furno computerka documentiga aan furno kale meesha pictureka ayuu noo geenayaa kadib waa kana Ahmed Ahmed double click aan ku siino wow that's cool sidaan markaa u geysatid movies ka aragtid inaad dhex dhigtid caadi ayaa u dhex dhigi kartaa hadhowna macnaha zoom macnaha waa yarey kartaa scroll barka waxaan ma wadanayo marka movies ka dhex dhigtay marka insha Allah khayr adijana assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh